واتهي زكريا يا شامية waxay isqabeen muddo 19 sano ah waxay ahaayeen ilmo agoon ah oo Yuhuud ah oo ku nool Yemen sidaas darteed iyagoo oo yaryar ayaa la isku guuriyay si loo ilaaliyo dhaqankooda iyo diintooda waxay ka soo badbaadeen saboolnimo iyo dhibaatooyin kale waxaana ay ka mid ahaayeen Yuhuudii reer Yemen ee ugu horeysay ee u soo guuray Israa'iil markii la aasaasay lamaanahan waxa la kala yiraahdaa Zakariya iyo Shamaa waxa ay isqabeen oo isla noolaayeen muddo 91 sano ah bal eega marwadani waa qofkii iigu horreeyey iiguna dambeeyey ee aan guursado marnaba kama tegin maxaad tiri oo maanigaa ku tuuray labadooduba waxay ku dhasheen waddanka Yemen labadeennuba agoonnimo ayaan ku soo kornay hooyo ma uusan lahayn anigana sidoo kale ilmaha agoonta iyaga oo yaryar ayaa la isku guurin jiray si aanay bulshada Yuhuudda uga dhex bixin Shamaa iyo Zakariya waxay kala ahaayeen 10 iyo 12 jir markii ay isguursadeen nolosheennu ma ahayn mid malab ah dhibaato ayaan soo marnay waxay ahayd mid aad u adag ma jirto cid soo martay dhibka aan soo marnay waxay ahaayeen labadooda oo qura guri ma haysan waxaan nadiifsan jirnay oo aan ku noolayn xerada dameeraha iyo xoolaha lagu hayo sanadkii 1948 ayaa waxay ka qaxeen saboolnimadii iyo dhibkii lagu hayay ee waddanka Yemen iyagoo u guuray Israa'iil oo markaa la sameeyay waxaana isku dhaleen 11 caruur ah 1 2 3 maba xasuusan karo hadda inta ay ahaayeen waa ay badnaayeen waxa hadda ay haystaan 64 caruur ah oo kala ah wixii ay dhaleen iyo wixii ay sii dhaleen eebbaha idin xafido nolol wanaagsanna ha idin siiyo waqti badan ayay ku qaadatay inuu ka fakiro waxa sababa guurka farxadda leh sirta ku jirta maxay tahay eebba ayaa ii soo diray iyada nasiib ayaan lahaa inaan hanto dumar badan ayaa sidii arigii iigu soo duday laakiin midna kama qaadan weli waa isjecel yihiin waxaana ay doonayaan inay isla sii joogaan waxaan jecelahay sanado badan inaan farxad ku sii noolaano inagoo aan isdagaalin waxaan eebba ka baryayaa inuu na xafido isku marna aan dhimano sheeko aad iyo aad xiiso u leh maantana ogow waxay ku beegan tahay maalinta jacaylka 14 Febraayo dabcan waxaa hubantiya barnaamijka in dhalinyaro badan ay daawanayso haddii aad jeceshahay inaad guursato bal halkan noogu soo qor ra'yigaaga ilaa iyo intee baad noloshaada la sii wadaagi doontaa lamaanaha ilaa iyo adiguna hadda hadiiba jirto inaad isqabtaan intee baad jeceshiin inaad isla sii noolaataan si arrimahaasi oo dhan u ogaano